walaalayaal maanta waxaynu samaysanaa saladkan waa salad aad u qurux badan indhihiina macalina caafimaadkiisana maasha Allah kala yarag qiimaha aad ku soo iibsanaysaana wax qaaliya maaha dhirta laga sameynayana agtaaday taalaa meel kasta oo aynu joogno caalamka waa saddexda geed ee laga heli karo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waad salaamay walaalaha channelkeena ku xiran Soomaali Cooking Culture inta habeen wanaagsan inta maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kasta aynu joogno Allah subhanahu wa ta'ala khayr baynu weydiisanaynaa inta ka bacdi walaalayaalow ma sha Allah waa mahadsantiin dhamaantiin shareetiina like-tiina subscribe-kiina iyo comment-kiina quruxda badanba waxaad la jazaakumullahu khayran bishii rabadaana waynu ku jiraa insha Allah ta'ala ducada inoo badiyo in Allah subhanahu wa ta'ala jirkeena naarta ka xoreeyo iyo jirka waalidkeenba iyo jirka ummadda muslimiinta Allah subhanahu wa ta'ala dadku naarta ka xoreeyo inuu inagu daro inta ka bacdi waxay noo socda cuntooyinka aynu ugu talagalay yacni dadku inay ma sha Allah caafimaad ka helaan tamar ka helaan firfircooni ka helaan bisha rabadaan gaar ahaan ay aad uga faa'iideystaan ee cabitaanku jirka ku yareeyo biyaha iskagana yareeyaan cuntada culus ee caloosha gelaysa ee u baahan biyo badan oo furfuro oo soo dhaafiya caloosha cuntadayna hadaba maanta haynaa ama cuntadan idin hortaala waa saladka ma sha Allah indhihiina macalina saddex geed oo quru ka sameysay mid afraad malaha saddexda geed oo ka sameysay yahay meel kasta hadaad Afrika joogto shanta qaaradood ee adduunka iyo hadaad Asia joogto hadaad Europe joogto hadaad America joogto iyo hadaad Australia joogto intaba saddexda geed waa laga helayaa waxaan insha Allah ta'ala isku dayaa inaan soo koobo ingredient-kan wax ka samaynayo sababta oo ah wixii haday bataan waxa laga yaabaa qofka ama jeebkiiba saamaxayn ama inuu meeshii ka wada helaanu saamaxayn ama waxaanu saamaxayn waxyaabo badan oo yacni dhaqaalihii waqtigu ku jirjirayo waxyaabo badan marka hadda waxaynu haynaa saddex geed iyo salad qurux badan la socdo wanaagsan hadaba insha Allah waxaynu ka sameynay fiidiyowgana si aad u fahanto ilaa dhamaadka la soco subscribe-ta haynaga ilaawin share-ta suulka insha Allah like-ta si walaalo badan u gaaro walaalaha badanna u share garay insha Allah ta'ala si ay uga faa'iideystaan dadkeenu inta badan caafimaadka ayay la dhibaatoonayaan marka hadaba saddexdan geed si ay bariis iyo baasto isaga yareeyaan waxa culus ee inta badan xanuunada inagu sababa la socdo wanaagsan ma sha Allah waa kan saladkii quruxda badnaa walaalayaal waxyaabaha ka sameeynayna horta waxa jira waxaan hadii la fahmo cuntada hawl badan male waxa laga yaabaa 10 shay inaynu raadino kana waa maqan waxba lama karin karo kan kala maqan waxba lama karin karo kan kala laba shay ama saddex shay hadii la isku habaysto wax qurux badan oo caafimaad leh oo la cuni kara ka soo baxaya marka hadda maanta waxa weeyaan saladkeenu saddex geed oo quru ka kooban yahay saddexda geed saddexdaba ma sha Allah Afrika meel kastood ka joogtaba waad ka helaysaa adduunka oo dhan meel kastood joogtaba saddexdan geed waa laga helaa alxamdulillah saddexdan geed waxa weeyaan mid waa kan ka horeeya waa cabbage waa ka u dambeeya marka jeexa yar baan ka jarjaranayaa kan ku xigana waa rumaankeeni ka ku xigana waa kaaroogi saddexda geed waxaynu ka soo saareynaa insha Allah ta'ala salad aad u qurux badan aad u caafimaad badan saddexda geed hadaad Google garayso mid walba waad helaysaa caafimaadka ku jira iyo yacni sida loo amaanayo iyo Allah subhanahu wa ta'ala sidoo agteena u dhigay walo wadankeena yan cidisa uga si faa'iideysan waayo inuu kelmadda salad markaynu maqallo waxaynu raadinaa inaynu caleenta salad ka raadino inaynu muus raadino in baytaraaf aynu raadino inaynu dabeetana aynu intaas basal tamaandho intaasaynu salad u naqana laakiin waxa jira boqolaal salad kumanaan salad wax kasta aad ka sameyn karto hadda ma sha Allah channelkeena Soomaali Cooking Culture dib aad ugu noqoto salad xataa qare ama xabxab laga sameeyay ku daray يعني انت سلرين ku daray ma sha Allah waa aad u badan run ahaantii ee inta caafimaad ka helayso fadlan soo daawo waxaan markaa isticmaalaya maanta anigu laba shay bahashan kaararkan ku dhilanaya qof walba iska garanaya ma sha Allah mashiinkana waan isticmaalaya mashiinkan idin ku duwo oo harjeenaya in arki doontaan mashiinkan isticmaalaya waa ka aniga kaaruga ku yaryaraysanaya mashiinkan haddaad joogtaan gameeli la joogto Perth waxaad ka helaysaa Big W ganaadan ka soo iibsaday waqti hore laakiin waxa laga yaabaa ilaa hadda inaad ka hesho insha Allah aad buu waxyaabo badan kaaga caawinaya seesas kala duwan uu leeyahay caalamka meel kastood ka joogtana waxa rajeynaya insha Allah ta'ala inaad heli doonto waxa weeyaan marka hadii aanad kan haysanin waxaad isticmaashaa bahashan yare kaarooga lagu xoqo
birtan yar lagu xoqo taasaa la seeskaaga dhigaysa maasha allah. laakiin muhiimadeedu anaga wax weeyaan in la arko saladka wixii laga sameeyay. marka hadda saladkaynu bilaabaynaa. kaaroogaan dhilaanayaa insha allah. waqti waxaan ugu dheeraanay videoga marka waan isku soo laabanaynaa. hadda maasha allah walaalayaal kaarooga كاروغا ساسو كدغيا ماشينكو wada seeska yar maasha allah. hadda marka kaaroogan soo dhamaystiranaya way isku soo laabanayna. kaarooga maasha allah saasa nooga soo wada dhigay. hadda waxaan inoo bilaabay noo jarjaraya waxa weeyaan kaabajki. aad baan isaga u yaryareynaya seeskiisa wada tusayaan ka dhigaya. kaabajki ba inoo yimi. kaabajki hadda jarjarkiisa inoo bilaabay. seeska yan baan inooga dhigayaa. aad yacni midida markaad ku jarayso waxaad ka dhigaysaan sidii inaad xoqayso kale markaad jarjarayso kale. marka waynu aad seeskiisu saa qafiif kuugu noqdaa. ta kale saladkan muddo dheer buu talaagada ku ooli karaa maasha allah. saa noo soo sheegay. marka waa kan saasan kusoo wada yaryareynayaa. kaabajkana waa soo dhammaystirayaa. waynu isku soo noqonaynaa. maasha allah walaalayaal kaabajkeeni waan soo wada jarjaray qafiif baan ka soo dhigay. kaabaj hadda naqaano in lagu kariyo hilib kaabajku saladka ugu macaan buu noqdaa marka maasha allah la hagaajiyo. hadda marka kaabajkii waan soo dhammaystiray dhagdhag baan ka soo dhigay. imika waxaan inoo soo dhilay inoogu dambeeya waa rumaanka midhihiisii ayaa nooga soo dhex guraya. maasha allah walaalayaal saladkeeni saanu inoo soo baxay ugu dambeyntii waa arkaysaan indhihiina macalina. waxaan rajeynayaa inay ka bogateen sidii loo sameynayay iyo sidii loo hagaajinayay iyo sidii hawsha yareydeen u soo dhamaynay iyo sidii maxay tahay maasha allah wax walba inuu dhanku ka soo dhignay. waxa inoo hadho kaliya lagu daraayo wixii dusha laga daraayay ee dressingkii saladka lagu daraayay. waxa adigu waxa doonta ku darso. liin dhanaan ku darso. haddaad mayonnaise haysato ku darso. haddaad haysato maxay hayto liin iyo anigu inta badan waxaan ku darsadaa aniga liin iyo malab iyo saliid saytuun saddexdaasaan isku qasaa. marka la cunaayo baan ku daraya haddii la haydmo insha allah tacaala. imika sidaa uu yahay baad bacda afka kaga xidhan kartaa ama weel kale aad ku ridanaysaa talaagadaad gashanaysaa. 2 cisho 3 cisho 4 cisho 5 cisho wuu ku oolayaa. laakiin haddaad fadlan talaagada gelinayso ood rabto inaad muddo dhowr cisho haysato ha iskaga darin dressingka. markaad kolba inta yaraad ka soo gurato liin dhanaantaada iyo xaaga ku tuujiso. intaynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa like ta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.